Waxa laga yaabaa adigoo ag maraya tower inaad isweydiiso horta saameyn intee leeg ayuu towerku keeni karaa, khatarta ka dhalan kartaa intee leeg tahay, ma sababa cudurrada sida kansarka. haddaba intaanan biloobin fiidiyoga noo saar subscribe ama follow si dad badan u gaadho. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. sidaan ognahay waxaanu aragnaa taawarada oo kusoo badanaya maalinba maalinta ka dambeysa, iyagoo faa'iidooyin iyo dhibaataba leh. faa'iidooyinka taawarada ayaa ah in ay ka qayb qaataan wada xiriirka bulshada, taasoo sidoo kalena khatarta ka dhalan karta taawarada ayaduna ay u kala badan tahay sida loogu sii kala dhow yahay. sidaa darteed waxaa taawarada laga mamnuucaa sida cusbitaalada, iskuulada iyo meelaha ay dadku ku badan yihiin. saameynta taawarku waxay ka bilaabaysaa shucaaca ama radiationka taawarku sii daayo. haddii laga helo 3 shay: awoodda dabka uu dhalinayo, inta uu dadku u jiro, halka la dhigayo ama laga taagayo, shucaacaasoo xanuuno badan keeni kara. haddii aan ku bilowno qodobka koowaad ee aanu soo sheegnay, awoodda dabka uu taawarku dhalinayo wax walba xad ama in go'an ayuu leeyahay. haddii intiisa la dhaafiyo, dhibaatooyin sababi kara. haddaba waxaa la mid ah taawarka, haddii birta qalabka saaran dab aad u awood badan laga dhaliyo, waxay sababi kartaa xanuuno. qodobka labaad, inta ay taawarku u jiraan dadka ama masaafada labada taawar ay isku jiraan, oo taawarku waa in uu dhowr boqol oo tallaabo aanay ka ag dhowaan dadku, masaafada labada taawarna aanay isku dhowaan. haddaba haddii la eego ka Soomaali ahaan, waxaanu arki karnaa in guryaha iyo taawarku ay isku dhow yihiin, iyo masaafada labada taawar ay isku jiraan oo aan badnayn. arrintaas oo la yiraahdo xanuuno ayay sababi kartaa. qodobka saddexaad, halka la dhigayo ama laga taagayo waa in magaalooyinka goornayaashooda laga taago si dadka aanay waxyeelo uga soo gaadhin shucaaca kasoo baxaya. waxa la yiraahdaa xanuunada uu keeni karo taawarku waxaa ka mid ah sida kansarka, oo shucaaca taawarku uu sii deynayo uu xanuunka keeni karo. marka qof walba waa inuu ka taxadiro khatarta taawarka ka dhalan karta. intaa ayuu ku eegayay fiidiyogeena maanta. si aad ula socoto wixii dambe, noo saar subscribe ama follow. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.